nin askari ah soo qaaday askartii oo dadka ciirsanaysa inay ayaga tahayba laga yaabo wuxuu i keenay magaalada duleedkeeda wuxuu dhahay gabadhaan soo helay yaa korsanayo hadduu dhahay yaa korsanayo nin baa i qaaday isagana reeruu ii geeyey ma ogeyn waxbana ma garan karin laakiin qiyaas ahaantii ayaa laygu sheegay in 4 bilood ama 5 bilood ilmaha u dhexeeya ahaa xitaana fariisanaynin weli lama kulmin qof ehelkayga ah waxaa rabaa qof hadduu jiro ay ka maqan yihiin xilligaaseyto hooyo soo qaxday cunug yar wadatay gabar ahayd lama garan karo oo qofkii weynaa hadduu dhinta laysma dhihi karo cunug yaraayaa nool laga yaaba inuu qofka dhaho haddii heblaayo dhimato cunugina wuu ka daba dhinta aniga waxaa ahay xilligaaseyta gabar laga soo helay hooyadeed meydkeeda ayadoo jaqayso laga soo dulfuray Kismaayo eelaboorkeeda iyo magaalada Kismaayo inta u dhaxayso ayayna ahayd meesha lagaga soo dulfuray hooyaday waxaa soo qaaday nin askari ah oo qoliyihii askarta ahaa wuxuu i geeyey magaalada Kismaayo hadduu alla kuuroon yahay Kismaayo waxaa lagu soo koriyey guriga ku yaala magaalada Kismaayo dhexdeeda reeraha ay soo koriyeen kheyr Allah isiiyo nolosheyda 14 sano markii gaartay reerkii waa ka tagay waxaa la tagay reer kale taala kulmay waa la i guursaday waxaan dhalay awlaad alxamdulillaah laakiin qofka markuu yahay bini aadam nolosha way ku adkaanaysaa markuu keligiis yahay haddana markuu hooyo sii noqdo way sii laba jibaarmaysaa marxalado badanaa lasoo maraya hooyo markaa noqotid markaa uur yeelatid markaa ilmo dhashid dayac badanaa la kulmaysaa qofku wuxuu rabaa qof garab siiyo ama walaal ah ama ehel ah ama arxan ah ugu yaraan xitaa haddaa isku dhacdaan family ahaan ama ninka aa isku dhacdaan adigu ku qabay waxaa u baahan tahay wax kala xaliyo oo idinkala islaaxiyo oo idinkala dhexgalo marka waxaan waafinayaa anigoo Farxiyo Cabdinaasir ah oo la ii yaqaan Farxiyo Cabdinaasir waa aabahay ilmihii naaska la ila siiyey aabahood waaye qofka naaska la nuugto walaalkiisa tahay oo sharciga islaamka dhaxal ayaa ku leedahay laakiin ilaa hadda lama kulmin aabihii dhalay ma arag hooyadiis haday hooyaday dhimatay ehelkayga adduunka meel kamid uu saaran yahay dadkii may wada dhamaanin biyo lama aha lama wada gurayo haddii hooyo la waayey waxaa macquul ah in aabba la helo haddii aabba la waayo waxaa macquul ah in adeer la helo haddii adeer la waayo ayeey in la helo habaryar in la helo qof allaalo qofku wax ka maqan yahay ama xilligaaseyta uu qof tabayo inuu ka tegay cunug yar wato hooyo Soomaaliyeed gabar wadato ee kasoo tagtay ama rajeynayso oo niyada uga taagan yahay inuu qof ka maqan yahay aniga maqan oo baadi ah inaan isla soo xiriirnaa rajeynaya insha Allah aad adag waa qof binaadam kaligiis ma noolaan karo xaqiiqda markii loo fiiriyo markaa ka cadlaato kali noqoto waxaa dareemaysaa nolosha Allah ugu xun ilaa qof iimaan leh oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ictiraafsan moogi ma ka bixi karo qof kaleeto way ku adkaanaysaa xaaladaasito waxyaabo badan laga qaadaa maalin maalmaha kamid ah la kulmo qof ehelkayga ah ama jiirkayga ku yaalo aadaan u xiiseynaya sababtoo ah qof bini aadan ah ma noolaan karo ehel la'aan wuxuu ku fiican yahay qof walba inuu ehelkiisa la nool yahay nolosha waxay farxad ku tahay markuu cunugaaga abti leeyahay awoow leeyahay ayeeyo leeyahay la kolkoolinayo aadna ku faraxsan tahay zaaid igu xumaataa marka maryaha qaar oo marka umuloo kaleeto wax miciina aan haysanin laga yaabo in istaal ku dhalo ama guri ku dhalo oo igu yaraado gargaarka dad hadda hooyo ahay ilmaha haysta qaxootiga la jooga cidina wax ugu ma tartamaanta qof intuu ila soo qasdo bishii $50 meel iga siiyo ma jiro waxa ka balan qaada 10 beri oo Ramadaan xiriir inaan soomo qof jiirkayga ku yaal hadduu arko insha Allah ma la kulmo sababta oo codsanayna dib anay soo gaarto ay waa qiyaas kartiin qof markuu kaligiis meel ku noolaado ama uu kali noqdo dib soo gaaro aadaan u qiyaas kartiin qof kaligiis ma noolaan karo haddana dumar